halkan waxay u qabataa ujeedooyin badan laakiin waxaa ugu muhiimsan marka ugu horeysa in la isbaraysto la isarko maadaama il barakaysan ay tahay dadkuna waayo badan ay ismugaayeen mashquulka adduunka iyo mid howlmaalmeedkana ay ku mashquuleen. waxaan ogaadinayaa oo aadna ugu mahadcelinaynaa jaamacadda simad oo ugu horeeya gudoomiye daahir oo sanad walba uu qaato mas-uuliyadda inay qabtaan lafdhabarna u noqdo alumnayga jaamacadda inay isku imaadaan iskana warqabaan isna wareystaan. waxaa leeyahay gudoomiyahaada u mahadsan tahay. annaga sharaf noo ah bahweynta simad ama simad family farxaddan iyo kaftankan iyo raynrayntan in afur wadareedkan lagu qaato la isuguna yimaado runtii farxad weyn iyo bogaadin iyo sunno aad u qurux badan ayay inoo tahay. sidoo kale waxaan mahad ballaaran u celinayaa jaamacadda simad iyo gudoomiye daahir oo halabuurkeeda lahaa iskumaadkan iyo afurkan lana joogteeyey oo muddadaas la soo waday afarka la soo waday oo lagu farxo. laakiin runtii aniga laba maxato muhiim ah ayaa jaamacadda isla soo marnay. mid waxay ahayd maalintii jaamacad laga dhigay waa joogay xafladda jaamacadda looga dhigay waa ka qayb galay anoo aljazeera u shaqeeyo waddanka u yimidba iska soo booqday oo 20 sano aan xamar imaan aan markaas imid marka waa igu waceen. runtii gudoomiyaha waxaan ku ammaanayaa aad u ammaanayaa in aragtidii jaamacadda iyo quality-geedii dhan walba ay wax iska bedelayeen. dabcan sida cabdiraxmaan ayda sheegay هذا طبعاً سنوات جواب دومي ووقتي جواب أرداه لكن كنتي مكي لفيري وحلا قبتي بدي لصور عفوا وحادي هذا بدنا عيان وأنا واحد وجودي لنا كم